عشيري دارس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا عما هندوني دا عيد كستو مسلنا وعشوينكي فرحة دي عيار عدنو عيد وعيد عيد عيد عشيري دارس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا عيد ما توكلي عرورتي يني عيرلو دمان سوقيا دا عميرا وينو عسي وعيد عيد عيد عشيري دارس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا ما شاء الله dhalinyaro qurux badan ayaa waxay marti noogu tahay magaalada Galkacyo oo ka kala timid gobollo kala duwan qof kasta iyo meeshuu ka yimid iyo hadda meeshuu ku sugan yahay isaga afkiisa ka sheegi doona la socod wanaagsan assalaamu calaykum dhammaan ummadda muslimiinta waxa leeyahay ciid wanaagsan dhamaantiin anigu waxaan ahay Sudeesi Cabdirashiid Jeego waxaan ka soo kicitimay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari hooyada ganacsiga Puntland waxaan maanta ku ciiday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaanu anagoo dhameystiran marti u nahay Mohan Abdul waxaana si gaar ah hadda marti u siinahay hoteelkan quruxda badan Royal Hotel oo ah hoteelka ugu quruxda badan magaalada Gaalkacyo ha ilaawinina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا واحد لنا هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وأنا جو سلمى محمد إبراهيم سلمى الجعلي كان إمد مقالة هرقيسة وحا أمرتكو هاي مقالة كالكعيو وحا أمرتكو هاي موهان أوفيشيال magacaygu waxa weeye Sharmaaka Cabdullaahi Maxamed oo loo garanog yahay Sharmaaka Xaraaro waxaan ka imi magaalada Berbera waxaan imi magaalada Gaalkacyo aan muslimiinta kula ciidayay waxaan marti u ahay Mohan waxaan caawa joognaa amaan madashan quruxda badan ay tahay Royal Hotel assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa Muna Faysal waxaan ka imi magaalada Hargeysa ee dalka Soomaaliland halka aan ku suganahay waa xarunta gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxaan kula ciidayaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ciidul caafiya ciid farax bartaan ku suganahay ee magaaladan quruxda badan leh laga soo dhaweeyay gaar ahaan hotelka Royal Hotel on martidiisa iyo sidoo kale maamulkiisa aan aad iyo aad salaamayo sidoo kale waxa halkan marti aan ugu nahay magaaladan quruxda badan laga soo dhaweeyay joogan quruxda badan leh Mohan official iyo sidoo kale asxaab kale oo halka iga soo eegaysan halka ka sheegi karin saasaydigeeti bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak maca ciidayn ciidul caafiya magacaygu waa Maxamed Axmed Jaamac oo loo gorogayay Maxamed Bidaanshe waxaan ka soo kicitimay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ummadda islaamka meel walba daafaha caalamka ka joogan waxaan kula ciiday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaan ahay mulkiilaha Bidaan Media السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوات تيسير سلام عليكم مقع دير تيسير جعيل وحن نلي عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحن ما أنت كل عيد يا دمان ومضى مسلمين تا إن كالكعيو أنا جو كيمي قبل كساحل سومالي لان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا هنتي لو ميل كستا جوجتان أدباني السلامية waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo magacaygu waa Mustafa Maxamed Axmed oo ku magac dheer Gaxnug waxaan ciid barakeysan kula qaadanaya magaalada Gaalkacyo dhamaan muslimiinta waxaan leeyahay dhamaantiinba ciid wanaagsan ciid mubaarak magaca aan social media ku isticmaalana waa Gaxnug oo meel kasta seerjin ka dhigana بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير دمان أمد الصوماليات مقعي وشاكر أحمد علي وحكم مقعد عليه بودريرة وحنك ساق عتمي مقالة هرجيسة حضرنا وحكم سجناه مقالة كالكعية حرنت قبل كمدق حلقة كل عيد ولا الله الصوماليات وحنا اللي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير السلام عليكم أصحاب الشرف بدن مقعي ومحمد شعفار حكم مقعد عليه بابا إن وحن شوجا كالكعية وحنك ساق عتمي حافظ كالكعية كتار waxaa hadda jooga hotel Gaalkacyo ما شاء الله ووضع aragteen dhamaanba asxaabtii meesha joogtay iyo waliba kuwa kale oo kaamirada dabadeeda taagan behind the scenes bidaan gaaladu saaxiibayaal Hargeysa Berbera Burco Laascaanood Garowe waliba waa aragteen asxaabta inay ka wada timid waxay ku sugan yihiin xarunta gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo ma sha Allah asxaab qurux badan barnaamijka waa nala socon doontaan intaas waxay ahayd isbrid iskiin baraya walow aad badankooda social media ka taqaaneen okay waxaanu bilaabaynaa barnaamijkeeni
waxaa la sameynayaa dadka meesha wada fadhiyo dhan qof kasta hees buu la imaanayaa hees markuu la yimaado waa lala qaadayaa barnaamijkaas boos weeye waa looga harayaa qof kasta dhalinyarada waa is wada fahansannahay idinkuna waana fahmi doontaan barnaamijku noo bilowmo hore u daawaday kulli adigu ku jeeda hees ba hore kasii diyaarsatay u bilaabaysaa dad meesha anigii laba kale ayaan garanaya iyo meesha ku ceeboobayaan anaa garanaya ma bilaabo ma bilaabo hanasaxood kalaafiha indhisihii qabashada indhisii faalada socodceelinta sheekada waxaan caana lagu habin ama hooyadeed korin ma hayseen asloobta edabtiyo xishoodka waxaan kugu habboona isaare haddoo xaafadii hoda jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxale habeen ciida ay tahay adigoo hidaha xidhan hoteelkii royal ban munikugu acsooma manay maraysaa kambadii ka baxay goodkii waa ka baxay marka dhaclaysiiyo ka baxay inaanu heystaa diyaarsanayo kuwan u dhiibaa باش هلكاس وسعنا انا كنت نبنيو فناك دما كنت اسمه هيا سير يا لو بلا بيا مركا ما حتى السلام عليكم لسوريدي اكشن با نوركي قرحتي فتي فلا حقيبساي hadday dumar qayayo inuu qurxleeyeen adaa qaaliyo caan qudheydada hanti adaa qabyo tirahanko qormeey jacaylkiyo qaybtii noloshaato adaa qalbigii harsada adaa qalbigii harsada wanaagu hadduu qof yahay qudhaadu noqon lahaa waynaa isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo waynaa isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo ما مقشي ستار وور بقشي انت تقناه ولا dadka boosto baan waa garay raga oo baahan boosti waa garay hay maro faysal bidixii ku soconaysaa baashi qalluucu hadaanu jirin qadhaan noloshuba lahayn qiimaha dunidan jireen haddaan quud loo ordaynin wixii qubta laga samraynin dadnimada lagu qanceen haddaan dumar lala qoslaynin nolosha lala qaybsanaynin jacaylkan cidii qirteenba waxaad aqarsataa ku dila run iyo been baan isqaban hadduu jiro qaadan waa qosolna noqoy qoonsima haddaan qaxarkiyo arlada iftiinka cadceedu qarin dadkaan wax ku qaadalayn haddaan qaxar jirin arlada hayo maya la isku qaban haddaan cidi qiri lahayn haddaan qoys laga unkamin taafiirtuna laba qof noqon quruxi may jiri lahaynba waxaad aqarsataa ku dila run iyo been baan isqaban hadduu jiro qaada waa qosolna noqoy
qosolna noqoy qoosimaad horta barnaamijkaana wata hadda anaa heestu maraysaa bilowga saa ula dhamaynaysaa waa ila dhamaynaysaa ila booskana haya boostaniyow qofka maxaa u aamusaysaa booskana haya ana haya war hal qof ma laga aamusay booskana haya socod booskana haya ma bilaaba hal hees ma garanayaa ma garanaysaa heestaas sida ma bilaaba diyaar ma tahay daway dawa caafimaadey darmaan qurux lagu mariibay dareenka naftayda kiciyay deegan baxday allah ubax dilaacay maxaan damqashada naloo daawaca maxaa gabalkooda miri dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahayd danteenna inaanu kaco muxuu daaligu badna ducaada waalidkeeni deeqda rabbi baa lahaa damashaad ilaa cayaar damashaad ilaa cayaar damashaad daryeelkaaga wacna daryeelkaaga oy aniga yaan layga wada harin iminka waxa layla wada qaado midda labaad cudurdaar heesta haddaydan garanay anaa idii bedelaya war markiiba ku boodatay tiiban ku aaday wow dadkiisa ku raaxaysanee dayaxii cadceeda daralayga yeedho daruuraha koorkooda durbalayga tumay dardhiqaanka laabtana dabaylihii jacaylka igu soo tegayo dadhisaanu noqoni middan daawadoo kale adduunidaba ma joogtee middan daawadoo kale adduunidaba ma joogtee medadahabadaydi olee dayrita maanta ama daawadaan helay ama sadaalayoodha difeer aawadaa gelay intan dumar jacaylkii cilmi baadilahaa igu dooganayo dadka kale mahaadee ana layga dabaariday dariiqaanka laabtana dabaylii jacaylka isoo degaayo darisaanu logole intan dumar jeclaada doqooyiga habaabo sidaan dardaraanahaye iska daba wareege middan daawadoo kale dunidaba ma joogtee middan daawadoo kale dunidaba ma joogtee medadahabadaydi olee dayrita maanta ama daawadaan helay olee dayrita maanta oy ama daawadaan helay ama sadaalayoodha digfeer aawadaa gelay waxaanu soo gaarnay gutiga gabgabadii barnaamijka awal waxaa rabay in meesha lagu coobo
oo aan kaga haro laakiin fanaaniin baa meesha isku aragtay wax lagu ceebin inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaanu idinka tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo